السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوااد أصحابتي كسو دوااد جنال كيغا نصر عرفاي كوكين جنال. أصحابي انت هورن ولا جوجتو حالين هاي سو دوااد انت نوغو عصب نسو دوااد إياغاني ان waxaa idin ku codsana inaa muuqaalkan sii share gareysiin si asxaab badan nooga mid noqdaan insha Allah. Asxaabe maanta waxaa sameysan doonaa insha Allah rooti jilicsan oo iska fudud insha Allah. Hadeertaan waxaa bilaabaneynaa muuqaalkeena. Bismillah. meeshaan waxaa ku heystaa hal koob oo caano caadi oo gasac ah soo qasay waaye. meeshaan waxaa ku heystaa koobka oo wax yar ka dhiman oo saliid ah oo liifa subag hadaa jeceshahay subag ku qaso. inta waxaa ku heystaa 2 qaando oo sokor ah. meeshaan waxaa ku heystaa qaadada afkeeda hore oo cusbo ah. meeshaan waxaa ku heystaa 3 koob oo bur ah. koobkan oo mar walba wax ku cabira ku soo cabira qiyaastii nus kiilo bur ah waaye. meesha waxaa ku shubtay cusbadii. intan waxaa ku heystaa leebatidii oo hal qaando ah, qaandada weynta oo cuntada lagu cuno. kadibna intaana isdhexgelinayna. kadibna waxaa ku darsanaa saliidii qayb kamid ah qaybtan kalena hadhow waa gadaalka isticmaali doonaa. kadibna waxaa ku darsanaa burki. هذا وحير قاندada isku dhaxgelina kadibna gacanteeda u isticmaali doona insha Allah. هذا مرك سليدي مرك هور سوريبا هذا استعمالها مرك. أصحابي هذا ارتنصفي عنا اسكسو دحقلينا مرة وإنه موقالك نو ديرادو اسكسو لابنينا إن شاء الله. واتا أصحابتي إذا بركي واسو دحقليي حوقي أنا كلها مكبقيلين سفي عنا اسكسو دحقليي واكنا sidaas soft u yahay saana la rabaa inuu ahaado rootiga si hadhow jilac oo kugu noqdo. waata asxaabteeda marka waa qamiirsaneena ilaa iyo wuxuu noo qamiiri doonaa insha Allah 30 daqiiqo kadib waa ku soo laabaneena insha Allah isla socod. waata asxaabteeda hadeertan waxa ku soo laabanay rootigii oo ujeedaas oo soo qamiiray. hadeertaniitin waa diyaarsaneena insha Allah. waata asxaabteeda meeshaan ku soo gadistay waa kala jaranaa. jileeciisa ku dhahay midida dhan uu ku dhagdhagooya. kadib waxaa sameynaa sidaana u kuskuusane
kuuskuuskana ma la rabo inuu kaa qalooco si hadhow rootiga mid isla eg kuugu noqdo. sidaana usoo wada kuuskuusa isku soo laabanayna insha Allah. waata asxaabteeda hadeertaaniintina sidaana usoo wada kuustay isla socod wanaagsan insha Allah. waata asxaabteeda hadeertaan meeshan waxaa ku heystaa saxankii foornada aan ku gelin lahaa. waxaa marsanaa wax yar oo saliid ah iyo wax yar bur ah si hadhow iiga dhigin hoos. waata asxaabteeda hadeertaan waa soo marsaday. waxaa sameynaa marka waxaa saaranaa rootigi. waata asxaabteeda inta waxaa ka heystaa ukun oo qeybta oo wax aa kasoo bixiyay cadaanka qeybta jaalaha bas ah. korka ka marmarin doona si hadhow qurux iigu sameyso oo guduud dahabi oo iigu noqdo insha Allah. hadii markaas ukunku dhaweenina waxaa sameynaa caano boora inta qastid iigo adeeg ah marmarsan insha Allah. kadibna waxaa sameyn doonaa wax yar oo sisin ah decoration ahaan korka uu qurxin doona insha Allah. hadeertaan waxaa sii shidanaa foornada ilaa 5 daqiiqo kadibna foornada gelin doona insha Allah. waata asxaabteeda hadeertaan waa ii soo kululaatay 5 daqiiqo kadib hadda ku soo laabtay foornada. rootigina waa kaasa meeshaan uu iigu diyaarsan yahay. hadda si toos waa loo gelinaa marka. bismillaah. heerkulka waxaa ii dooran 150 kori hoos ii dooran. timingkan waxaa geesanaa 30 daqiiqo. 30 daqiiqo kadib waa kusoo laabtay. asxaabteeda rootigeena markaa soo diyaarsanay sidaan quruxda badan oo nooga soo baxay waa u jeedin isaga dhan sidaas oo guduud u wada yahay maasha Allah. dhexdiisana u jeedaa sidaas oo jileec u yahay. intaa haysanin Allah siiyo anagana Allah noo siyaadiyo. intaa dib u kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashii Nasra Carfaayo idinkaga tagayso khayr iyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo insha Allah. muuqaalkana sii share garee insha Allah. Nasra Carfaayo cooking channel. Nasra Carfaayo cooking channel.